الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما الثلاثي المجرد فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها، نحو نصر ينصر وضرب يضرب. waxaan soo haynay risaaladii tasriif alcizi lil'imaam ibraahim azanjani raximah allahu tacaala. darsiga hore waxaan kusoo qaadanay alaqsaamu athamaaniya. duruus horena waxaan kusoo sheegnay alaqsaamu asabca. farqigu dhexeeya marka waa maxay? ficilka markii loo qeybiyo biictibaari asixati walictilaal, qaybintaasa waxaa loo yaqaanaa alaqsaamu asabca. sababtuna waxa weeye ficilku wuxuu u qaybsamayaa saxiix iyo muctal. saxiixii 3 qaybood weeyaan: saalim, mahmuuz, mudacaf. muctalkuna waa 4 qaybood: mithaal, ajwaf, naaqis, lafiif. 4tan iyo 3da markii la isku geeyo 7 qaybood baa kasoo baxaya. ama alaqsaamu athamaaniya, ficilka markii la qaybinayo waxaa laga fiirinayaa min ictibaarayni. 2 ictibaar ayaa la isku keenayaa. ictibaar waa tii aan soo marnay, ficilka waxaa laga fiirinayaa min xaysu sixat walictilaal, ama waxaad tirahdaa saalim iyo hayru saalim. ictibaarka labaad waxaa weeye ficilka waxaa laga fiirinayaa biictibaari cadadi xuruufihi. markii labadaas la isku geeyo waxaa kasoo baxaya alaqsaamu athamaaniya. qaabka usoo baxaysana waxaa weeyaan: ficilka mujaradka 4 qaybood baa kasoo baxaya, ficilka masiidkana 4 baa kasoo baxaya. mujaradkan ku bilowno. qaybta koowaad waxaa weeyaan thulaathiyun mujaradun saalim. ficilkii waa thulaathi, 3 xaraf buu ka kooban yahay, waa mujarad, xuruuftiisu dhan waa asal, waana saalim, naxu karuma. qaybta labaadna waxaa weeyaan thulaathi mujarad hayru saalim, sida wacda oo kale. wacd waa thulaathi waana mujarad, laakiin waa hayru saalim. usuushiisa mid ka mid a waxaa laga helay xaraf min xuruuf alcilla. qaybta saddexaad waxaa weeyaan rubaaci mujarad saalim, sida daxraja oo kale. qaybta afraadna waxaa weeyaan rubaaci mujarad hayru saalim, sida waswasa oo kale. idan 4 baa kasoo baxday mujaradkii. masiidkana sidaasoo kale 4 baa kasoo baxaya. qaybta koowaad waxaa weeyaan thulaathi masiidun fiihi saalim, naxu akrama oo kale. waa ficil thulaathi ah oo 1 xaraf lagu ziyaadiyey. xarafka lagu ziyaadiyena marka waa alhamzatu. akrama la dhihi maayo, waa mahmuuz, sababtoo ah hamzadani waa zaa'id. xarafka zaa'idkana ficilka ma saameynayo min xaysu sixat walictilaal. marka waxaan leenahay akrama asalkiisa waa karuma, hamza lagu ziyaadiyey, idan waa thulaathiyun masiidun fiihi saalim. qaybta labaad waxaa weeyaan thulaathiyun masiidun fiihi hayru saalim. waa thulaathi xaraf lagu ziyaadiyey waana hayru saalim, sida awcada oo kale. awcada asalkeeda min wacada ayay ka timid, hamza lagu ziyaadiyey waxay noqotay awcada calaa wasni afcala. idan thulaathi masiidun fiihi way tahay, hayru saalimna way tahay, sababta usuusheeda mid ka mid ah ayaa waxaa laga helay xarf min xuruuf alcilla. qaybta saddexaadna waxaa weeye rubaaciyun masiidun fiihi saalim, sida tadaxraja oo kale. qaybta afraad uguna dambaysa rubaaciyun masiidun fiihi hayru saalim, sida mathalan tawaswasa oo kale. marka 4tan qaybood oo masiidka ah iyo 4tii mujaradka markii la isku geeyo waxaa kasoo baxaya alaqsaamu athamaaniya. ficil kastoo la sheego alaqsaamu athamaaniya mid ka mida unbuu hoos imaanaya. nacam. qaala almualifu raximah allahu tacaala: athulaathiyu almujarad. ama athulaathiyu almujarad, thulaathiga mujaradka, fain kaana maadiihi, maadigiisa hadduu ahaado calaa wasni facala, facala wasankeeda mid ku imaanaya, maftuuxa alcayni, facaladaas xaalay tahay mid caynteeda la fatxiyey, famudaaricuhu, mudaaricu facala maftuuxa alcayn, yafculu weeyaan, aw yafcilu bidami alcayni, xaalay cayntu tahay mid la goday, aw kasrihaa, xaalay tahay mid la kasriyey. wadaalika kaagaasi naxwu nasara yansuru oo kale weeyaan, wadaraba yadribu. mabxadkani mualifku wuxuu ga hadli doonaa alficlu almujarad. waxaan hore usoo qaadanay ficilka mujaradka inuu 2 nooc yahay: thulaathiyun wa huwa alakthar, iyo rubaaciyun. almujaradna waxay u jeedaan ficilka xuruuftiisa oo dhan ay asal ay tahay. alafcaalu almujarada 3 xaraf kama yaraan karaan ilaa licilatin tasriifiya, 4 xarafna kama badnaan karaan. sidaa darteed culimmadu waxay yidhaahdeen anwaacdoodu waa 2: thulaathiyun wa rubaaciyun. mualifka marka wuxuu ku bilaabay alficlu thulaathiyu almujarad. ficilka thulaathiga mujaradka 3 wasan ayuu leeyahay: facala, facila, facula. 3daas wasan markii loo fiiriyo ila almudaaric 6 baab ayaa kasoo baxaya. albaab hadda waxaa loola jeedaa nooc, marka waa 6 nooc. facala maftuuxa alcayni 3 baab ayaa kasoo baxaya, bimacnaa 3 nooc oo mudaaric ayay leedahay.
الباب الأول فعل يفعل، الباب الثاني فعل يفعل، الباب الثالث فعل يفعل. صدح أسباب وحيسكال فعل. فعل مكسور العين لو باب يليه. الباب الرابع فعل يفعل، الباب السادس فعل يفعل. marka labada asbaab waxa iska leh fa'ula hal baab ay leedahay. الباب الخامس فعل يفعل. abwaabtan lixda ah isku awood ma ahan, bimacnaa saddex kamida culimada waxay u yaqaanaan dacaaim al-abwaab. saddexdaas baab waxay kala yihiin الباب الأول والثاني والرابع. saddexdan baab waxa loo yaqaanaa dacaaim al-abwaab. waa saddexda baab ugu muhiimsan abwaabtan lixda ah. laba sabab ayaa keentay in loogu magac daro dacaaim al-abwaab. سبب كواد وحويان اختلاف الحركات. حركة عين سارا في الماضي في المضارع واسخلاف صنته. الباب الأول وحوها فعل يفعل، عين ماضي ومفتوح، مد مضارع ومضموم وفتح ضم. الباب الثاني فعل يفعل وفتح كسر، إذن وحيسكو خلافين حق حركاتك. سيدو كده الباب الرابع وفعل يفعل كسر فتح، حركة عين الماضي حركة عين المضارع واسخلافين. تامرك وسبب كوبات اختلاف الحركات. سبب كل بعض وحي لادين كثرة الاستعمال. أبواب تنصدح ذا اللي يقان دعائم الأبواب عربت أدو استعماشي. مرك الله وضع سبب متكمل هدي اللوايو دعائم الأبواب مسوق ليه. صدح ذا باب كلافيري. الباب الثالث وفعل يفعل، ماضي عين تيسا مضارع وافد حسنته، وحلواري اختلاف الحركات. marka waxa la leeyahay الباب الثالث معها من دعائم الأبواب. سيدا وحلمد الباب الخامس والسادس وحلوا اختلاف الحركات، ومن ثم لغتر مايو من دعائم الأبواب. خلاصة مركو حويان فعل كثلاثي أي مجرد سدح وزن بوليه فعل فعل فعل. سدح ثلاث وزن مركي مضارع الله فيريو لح نوع ويقانا أبواب أي كصوب حيه. مؤلف رحمه الله تعالى وحكوب العبي فعل مفتوح العين مضارع كإيمانية، وأنا سدح باب. الباب الأول والثاني والثالث. وحير فإن كان ماضيه فعل كماضي صدوه هذا على وزن فعل وزن كذا متكو إيمانية مفتوح العين، فعل ذا حالة مد عين تذا لفتحيي، فمضارعه مضارع يسو يفعل ويان. والباب الأول فعل يفعل أو يفعل ويان. والباب الثاني بضم العين عين حال لكذي أو كسرها عين هذا حال كسري، وذلك نحو نصر ينصر وضرب يضرب. الباب الأول والفو حير وفعل يفعل على مدى الوقر تنوحويان عين الماضي وكردغانتاي، عين المضارعنا وقدنتاي، وفتح ضم. باب كاني وحقياس كوي ماذا أفر نوع كمذا أنواع فعلك. الأول الأجوف الواوي، حنروص برني أجوف كلاب النوعيان أجوف واوي يا أجوف يائي. الأجوف الواوي هذه ماضي يسو نقضى فعل، مضارع يسو أنه نقضى يفعل. مثلا قال يقول، صام يصوب. قال أصل كذوحها قول على وزن فعل، يقول أصل كذوحها يقول على وزن يفعل. نوع على بعض أكو إيمانا يا الباب الأول. والناقص الواوي ناقص كسيد أجوف كوكلا وحو نقضى واوي ويائي. مثل واوي يا باب كان لغوك هنا. مثال وحو نقضى غزا يغزو، يدعى يدعو. غزا أصل كذوحها غزا على وزن فعل، يغزو أصل كذوحها يغزو على وزن يفعول. كان مركب النوع إلى بعض. إذن الناقص الواوي وحدكو كانت الباب الأول فعل يفعل. نوع سدحاد وحويان المضاعف المعدى، فعل كمضاعفك أو مفعول قاضنية. سيدا مثلا حج البيت يحجه أيضا، ومد يده يمدها. حج أصل كذوحها حجج على وزن فعل، يحج أصل كذوحها يحجوج. وحتقول برأيكتا المضاعف المعدى الباب الثاني وكوي ماذا فعل يفعل، لكن هو النادر، وأنا ماشي على مدي هذان ويندر كسرها، بمعنى الباب الثاني لقو كانوا مبدنا. سيدا قياسك وإن لقو كان الباب الأول فعل يفعل. نوع فراد نوع حويان الدلالة على الغلبة في المفاخرة، فعل كتصينية لوقف أو ترتن كدحي مد إنه غالب نقضي. مثلا وحضر نساء سابقني هبل بإلى برتمي فسبقته
ولا برتمي فأنا أسبقه مدك أرد بديبان أحي مرك أسبقه وحتصيا أردكي أيات كغبديسي نعم مرك أفرتان نوع كامل من أنواع الفعل باب كان يوحيين قياس أفرت وحيك لهايين الأجوف الواوي الناقص الواوي المضاعف المعدى الدلالة على الغلبة في المفاخرة. الباب الثاني وفعل يفعل على مطلق قرتنا وحويان أن يكون مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع وإن لقو كان فتح كسر سيدا مثلا ضرب يضرب. الباب الثاني وحا قياسه أفر نوع كم أفعاش نوع كوباد والمثال الواوي فعل كمثال كلاب الله قيبيا مثال واوي مثال يائي مثال كواوي باب كان يلقو كينا فعل يفعل واحد لذا مثلا وعد يعد وصف يصف وعد وعلى وزن فعل يعد أصل كيدوحوها يوعد وودي والحدفي صابته وحيد علي بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة إذن يعد أصل كيدوحوها يوعد على وزن يفعل لكن وودي إلى علة صرفية يلو حذفي مرك النوع كوباد والمثال الواوي نوع على بعض كوي ماذا باب كاني والأجوف اليائي سيدا مثلا باع يبيع وكلا مال يميل. نوع سدحات وباب كان قياس نقرية والناقص اليائي سيدا مثلا رمى يرمي أتى يأتي وكلا رمى أصل كذا ورمي تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلبت العلة ألفا فصار رمى. يرمي أصل كذا وحوها يرمي حركة دي بالغ حذفي يأذى للثقل كان مركوا نوع سدحات الناقص اليائي. وحكى له باب كان قياس نقضة المضاعف اللازم المضاعف المعدى وحلو كيني الباب الأول. أما المضاعف اللازم وحلو كيني الباب الثاني فعل يفعل مثلا حنت الناقة هشيب أول شيء تحن حن أصل كذا هو حنن على وزن فعل على الباكل عي لا بحرف أو متجانس مركي كلمان ميت كهراء أي حركة لقى قاعدة طلب للإدغام مركز فعل كوح نقضي حن تحن أصل كذا هو تحنين سيدو كلا لا بحرف متجانسان ياكل مي ميت هراء حركة لقى قاعدة طلب للإدغام كدبنا نون تي حركة لقى قاعدة وهذا الريبان ينون متحركة أي لسكو إدغامية مركز وحو نقضي تحن. المضاعف اللازم مرمر وحال أركاسه كيمد الباب الأول فعل يفعل لكن والنادر وأنا ماشي يرادان ويندر ضمها مركز المضاعف اللازم هي المضاعف المعدى عكس بسكويهين. المضاعف المعدى وحو قياس كيم هذا الباب الأول باب الثاني وحكوية نادر. المضاعف اللازم وعكس جيو باب الثاني أي قياس كيهي باب الأول نادر واي. المهم الباب الثاني وحمقيسه أفر نوع وكمل أنواع الفعل المثال الواوي الأجوف اليائي الناقص اليائي المضاعف اللازم. نعم مؤلف كوحو يري ويجيء ويماذا مضارع فعل فعل مضارع يدوح كوي ماذا على وزن يفعل وزن كذا مفتوح العين يفعل عين تيذا حالة هاي مثل فتحيي شرط بوليه إذا كان عين فعله فعل كيس عين تيسة أو لامه هدي هذان حرفا حرف ومن حروف الحلق كمذا وهي حروف الحلق 6 لحوية الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وذلك كاغا في مثال كيس النحو سأل يسأل ويان ومنع يمنع. سأل يسأل حكم مثالي شرط إذا كان عين فعله حرفا من حروف الحلق. منع يمنع حكم مثالي إذا كان لام فعله حرفا من حروف الحلق. الباب الثالث على مضلق قرتوح ويان أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع ماضي عين تيسة مضارع عين تيسة وإن لكردقة ضابطكم وحويان فتحتان. لكن الباب الثالث وحكو خلاف الباب الأول والثاني شرط بوليه شرط قاسنا وحويان عين الفعل أما لام الفعل متكمذة وإن لقاها لا حرف من حروف الحلق. شرط قان مركم حاكيني علماء وحي ليهن سيدا قياس كوحوية أن يكون بين الماضي والمضارع مغايرة عين الماضي وعين المضارع حق حركات كوين اسكو خلافان ساسا مركا قياسك وإن مركا مغايرة جرتا مركا كسو هلدين دعائم الأبوابنا وأتيلو شردين اختلاف الحركات هي كثرة الاستعمال هذه ميت كمد اللوايو لغترين مايو دعائم الأبواب مركا قياس كوحويان عين الماضي والمضارع وين مغايرة كدحيسا
muqaayaradaasi lagama leexan karo ilaa cudurdaar inuu yimaado ma ahne. marka su-aasha imaanis waxa weeye baabkani maxaa lagu cudurdaarayaa? culimmadu waxay yidhaahdeen xuruuful xalqi waa thaqiila, waa culus yihiin sababta dhuuntay ka soo baxaan, damada iyo kasradana waa thaqiil. marka haddii la yidhaahdo ha la jamciyo waxaa kulmaya athaqiilaan, nudqigana marka waa adkaanaya. marka cudurdaarkaasaa yimid, waayo ha laga takhalusaa la yidhi. qaabkee baa laga takhalusayaa? waxaa la yidhi halala yimaado akhaful xarakaat oo ah alfatxu fi lmaadi walmudaaric, si marka fatxada fudud laga horgeeyo xuruuftan culayskooda, markaasna waxaa xasilaya alictidaal, wixii waa isku dheelitirmayaan. marka sababtaasaa keentay in baabkani laga waayo muqaayaradii labadii baab ka horeysay laga helay. nacam, waxaa jira kelimaad xarfu xalqi laga helay haddana maca daalika damadii ay saaran tahay. mathalan dakhala yadkhulu oo kale, alkhaa'u hunaa wa caynu lkalima damaana saaran. waxaa la mida naxata yanxitu, alxaa'u wa min xuruufi alxalqi kasraana saaran. see ku dhacday marka? awalan luqada carabiga waxaa asal wa asamaac, bimacnaa wixii carab laga maqlo sidii looga maqla loo qaadanaya. marka taasa asala horta kow. tan labaad waxaan leenahay shardiga in la helo kama dhigno in mashruudka la helayo. haddii aan soo dhoweyno weysada waxay shardi u tahay lisalaah, salaadu marka waa mashruud, weysaduna waa shardi. weysada haddii la helo ma ka dhigantahay in salaadii la helayo? may kama dhigno, oo qofku wuxuu u weysaysan karaa si qur-aanka u akhriyo. idan wujuudu shardi, shardigoo la helo kama dhigno mashruudka in la helo. baabkan aan ku tadbiiqina marka. dakhala waxaa laga helay shardigii oo ahaa cayntii waxaa degay xaraf min xuruuf alxalqi. dakhala marka shardigii markii la helo ma ka dhalanaysaa mashruudkii oo ah yafcalu in lagu keeno? ma ka dhalanayso in mar walba lagu keena calaa wasni yafcalu. cagsi marka, shardiga haddii la waayo mashruudka waa la weynayaa. weyse haddii la waayo salaad ma jirto. facala haddii xarfu xalqi laga waayo yafcalu laguma keeni karo. marka arrinkaasi ku baraarug insha allahu tacaala. kadib mualifku wuxuu yidhi wa abaa ya'ba shaadun, halka hanoo joogo, sababtoo ah waxaan u baahan nahay inaan kala socno bayna alqiyaas waashaad wannaadir. taana insha allahu tacaala darsi soo socda ayaan oga hadli doonaa. hada wallahu aclam, وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.